wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cumar Cali Cabdilaahi Badi ayaa madaxda gudoomiyay shirka gudida xaaladaha degdega ee xanuunka COVID-19 ee wasaaradda horumarinta caafimaadka. Shirkani oo ka dhacay wasaaradda horumarinta caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa laga hadlay intii uu socday xaalka uu marayo xaaladda xanuunka COVID-19 ee dalka. talaalka caabuqa COVID-19 oo dalka ka socda iyo sidoo kale wacyigelinta in la ilaaliyo fayadhowrka guud ee caafimaadka dalka maadaama haatan uu jiro caabuqa COVID-19. haddaba markii uu shirku soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay waxyaabihii kala duwan ee shirkaasi laga hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cumar Cali Cabdilaahi Badi waxa uu ka waramaya shirkaasi iyo waxyaabihii kala duwan ee diiradda lagu saaray. wasiirka ayaa sidoo kale ka waramay halka iyo heerka uu marayo caabuqa COVID-19 ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cumar Cali Cabdilaahi Badi ayaa bulshada ugu baaqay inay ka foojignaadaan khatarta xanuunka COVID-19 oo wali ay xaaladda jirto. waxa madaxda wasaaradda caafimaadka ee waaxaha kala duwan halkan ku yeelna shir laga hadlayo xaaladaha caafimaadka dalka oo shir joogto ah oo bulshada lagula socodsiiyo xaaladaha kala duwan ee caafimaad ee gobolada iyo dalka oo dhanba. alxamdulillah si guud dalku aad buu fiicay xaaladda caafimaadku. haddaan ku horeeyo xanuunkii COVID-19 inta sanadkan lagu jiro bishii koobaad iyo bishii labaad labada bilood xanuunku aad buu ugu yaraa, laakiin markii la soo gaadhay bishii saddexaad xanuunku aad buu u kacay, ama ha noqoto tirada xaaladaha xanuunka u soo dhacaysa ama dadka u dhimanaya. markii la soo gaadhay bishii afraad halkii u sarreysay buu xanuunku marayay, dhimashaduna halkii u sarreysay maraysay. haddana bishii shanaad markaynu soo gallay hoos u dhac buu xanuunku sameeyey. bishii lixaad dadka xanuunku uu ku dhacay 22 qof ay ahaayeen oo baaritaankii la sameeyey 5793 qof ayaa 22 qof laga helay, dhimashaduna 3 qof ay ahayd. bisha aan ku jirno hadda ee July maanta 10ka ah dadka xanuunka laga helay waa 5 qof ee wax dhimashiina ma jirto. xanuunku marka la eego dhab ahaantii waxaan dareemaynaa in 5 xaaladood ee cusub ee bishana dhammaantood ay yihiin dad waddanka dibaddiisa ka yimiday oo dhammaantoodna wasaaradda caafimaadku ay halka ay hayso xaaladooda ay la socoto. marka bulshada waxaanu sheegaynaa xanuunka inta badan waxa keena faafidiisu waa soo socodka dadka, in dadku ay wacyiga iyo talooyinka wasaaradda caafimaadka horena u bixin jirtay ay aad u dabaqaan. waxaan ugu muhiimsan iminka xilligan la joogo in dadku ay feejignaadaan oo astaamaha u eg xanuunkii oo dhanba in dadku ay aad ula socdaan. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi, warbaahinta qaranka, magaalada Hargeysa.